السلام عليكم لما انتي اصحابتي اللي تكتبوا يقصوا بيروا مالتندي جنة أم نبلا إن شاء الله كل يوم قبل أصحابتي كانوا يشير ستن ولا يالو وعدتي سكريب كلا يسار إن شاء الله إلا قري شيرتن هذا إذا إن شاء الله وأكون مهتنتين قلبت وحير فاهم بلان بيقول كده وحير هلا عن فرسان وحير dhibkii aan subin jiray iyo markaan arkay xaaladda aan 2 sano ku jiro different ay noqoto ama kii yani kala bedel ay noqoto ilmaha waani oo waxaad ku waani lahayd wixii kugu dhacay wax kamid ah ku waani guriga hooyada ilmaha joogo oo adoo kala oo markii lagu dhigi jiro kale soo xaro iskuulka yani iyo maanta nolosha iyo gaajada aad la ordo aragtay maalinta imaanaysa saan ma ahayd maanta ma sha Allah alxamdulillah badan ayaa iska kaabay ani waxaan idin lahaay hadaan isku soo jeedo ilmaha oo adiga caawi ilmaha caawi guriga hooyada inay joogaan iyo aad dibka ay ku haysteen iyo markay maxaa waxay la kulmayaan si dhiirigelin ajara keenay ani waxaan idin lahaay jidad iska ilaaliya sigaari waxa iska ilaaliya ciyaaladii noloshiina wax badana ka hartay markiina saas u fikirtiin markay maalinta baxdeen haday baabka soo galay hadana waxay leeyahay inta amal marka uu hawlgelin yaabin maxay dib xasas ku keenay iskoolka jaaniska ka qaata sabab dad badan jiro iskool dhiganin taas ay sheegi lahaay in maxay gaynistay waxaas ku daawanina isku kalina iskoolka bisa jidka dad iyo meesha degan ka qarinin oo yaabin caawin karaan booliska u sheegi karaan sababtoo daabeen hal kara sabab hada cunugaas uu qarisi maalin walba jidka qasa marka saas uu fikirina wayna baa ka qatanina wayna caawinaya ina saas uu fikirtina miro inta maxay doo caloosha وهكذا ولاشين فاضل بلان بريبيل كذا قلبت إسر تاجينه والله وحلو فرح انت زيادة أركتي maxay dareemay hooyadaas oo cunugaas aan nolosheedii aan maxay ahayd ku baabiyeen dad yani waxaan waa wax dowladan waxaa jira caruurta markay dacwoodaan baaritaana la sameeyo iyo shakiya dadkan gala marka alxamdulilah horta hadday inta la kulantay sheekaystaan wiilkan haddeer waa la kaxaynaa waxaa loo geeyay wiilkan baryahan oo dhan lalaa haddeer waxaa qaadanaya insha allah sidii la sheegay ay sheegayso afkeeda ka qaratay in cid kaloo soomaaliya loo geynaa maasha allah gul iyo gobonimo alxamdulilah haddaa wiilkaaga ilaahay kuu soo sahlay oo ilaahayba idin wada kulmiye insha allah ayadana ilmaheeda allah usoo celiyo aan u duceyno in loo duceeyaa muhiim ah ilaahay waxaan ka baray gabadhaas ilaa awlaadeeda dadkan ilmaha ka haysan xaqa tuso dadka ilmaha wadamadan dadka ilmaha xafito oo si fiican u haysta lagama qaato dadka ilmaha dayaca laga qaataa ilmaha aan dayicin ayaa laga qaataa dadka ilmaha dayaca maba laga qaataa wadankan ilmaha waa bilcagisa loo shaqeeyaa marka itixaan waa iska itixaan ilmaheena lagu itixaama waa wax ilaahay u qoray gabadhan ilaahayse waxaan ka bari itixaanka adduunka ilaahay inuu ka kor qaado ilmaheeda iyo iyada isu soo celiyo alxamdulilah ilaahay waxaan ka bari ilmaheeda iyo iyada ilaahay inuu isu soo celiyo insha allah biidnillaahi kariim marlow inay ilmaheedii ayada midoobaan aan ilaahay u barina gabadhan maxaa yeelay dadka ilmaha xafita wallaahi waa ogaale dadka ilmaha xafita aa laga qaado ogyaa wadamadan dadka ilmaha dayacana maba laga qaataba ilaahay amartid bilcagis gadaal ay u shaqeeyaan dadkan anigu waa mafahma marka ilmaha itixaan lagaaga dhigaa itixaan kuwa adiga baa lagaaga dhigaa marka ilaahay waxaan ka bari ilaahay ilmaheeda iyo ayadaba ilaahay inuu kulmiyo oo dad ilaahay ka dhigo maxay ahayd gadaal isku soo celiyo ilmaheeda oo wada midoobaan oo familkoodii sidoodii hore kusoo noqda taasaan ilaahay u barina gabadhaas walaasheena ducay naga rabta yaanaan qaqashaad yaanaan cayni yaanaan aflagaadayni yaanaan wax kala dhihin wallaahi waxay naga mudanta inaan u duceyno gabadhaas waa hooyo qaali waa hooyo qalbi fiican yaan la kalifin qofka asagaa dhiban markuu dhiban yahana lama sii shido dabka laguma sii shido
qof dhibano ah asaga ah oo dhibano ah oo la iska nabaayo oo cunugiisa nabay wadamadan haddaad sad ogtihiinba waalidka lama waraysto waxaa la waraystaa cunuga warka cunugaa la dhegaystaa waalidka qofna ma dhegaysato ma fahamti wuu isdifaaca islee laakiin cunuga isma difaaci karo waa sharcigooda ayaga wadanka ayaa dhigan wax sharcigaana lama dhaafi karo marka umale meesha wadamada muslimiinta ay dhegaystaan waalidka lama dhegaysto waalidka waxaa la dhegaystaa cunuga marka saas waa inuu ogaadaan ilaahay marka caruurta dib ayada loo mideeyo oo ilaahay awlaadeeda dib gabadhan allah ugu soo celiyo oo shakiga ayaga iyo dadkan ilmaha ku haysta ku kala jira ilaahay ha ka kala saaro insha allah biidnillaahi kariim guul iyo gobonimaan kuu rajayna Faadumo Baraanbur insha allah walaashay oo kuu soo ducaynaa ilaahay waxaan ka bari ilmahaaga iyo adigaba inuu ilaahay idin mideeyo guul iyo gobonimo walaashay xumaan hayga qalab hal fartiin aan ku soo dara marmadaas warkadaada inta soo qaato aan ku soo ducaynaa iga raali noqo dadka xumaata walaashay fartiintaasna oo ku soo dira insha allah asxaabtay guul iyo gobonimo idin rajaynaa insha allah dhammaantiin waa kaas hadde dukaanka inaad sidiin aan laga rabaa adinka iyo maqaayadda insha allah guul iyo gobonimo